Good afternoon, dear learners. For today's lesson will be a conversation. And this conversation will be between two girls or two women known as Hasno and Aisha. maanta wada sheekaysi ayaan qaadanaynaa. wada sheekaysigaasna wuxuu ku saabsan yahay laba qof oo dumarad ah oo loo kala yaqaano Hasno iyo Aisha. Hasna bilowday markii waxay tiri sheekadii dear friend, saaxiib qaali ah. Friend waa saaxiib qof dumar ah iyo qof rag ah oo loo isticmaali karaa. markii waxay tiri dear friend, saaxiib qaali ah, why do you look, maxaad ugu muuqataa mise ugu eg tahay dejected, qof niyad jabsan. maraha waxaa laga yaabaa inay aragtay saaxiibteed oo xaaladeed caadi aysan ahayn, marka way weydiinaysaa. waxay tiri marka dear friend, saaxiib qaali ah, why do you look, maxaad ugu muuqataa mise ugu eg tahay dejected, qof murugaysan ama niyad jabsan. I can see, waxaan arkay tiri you are not behaving, inaadan u dhaqmihaynin normally, si caadi ah. Aisha waxay tiri marka I have, waxa I haysto the biggest problem, dhibka ugu weynaa in my life, ee noloshayda. I don't know, ma aqaanay tiri even hataa how to explain, sidaan u sharxi lahaa. Xasna waxay tiri marka as you are aware, sida aad ka warqabtid bay tiri the problem is, dhibaatooyinka come way imaadaan and go wayna tagaan. There is no, ma jirtay tiri problem, dhib ma jiro that lasts, joogayo forever, weligiisa. So sidaa daraaddeed please fadlan share with me, ila qaybso ama ii sheeg your situation, xaaladaada, so that sidaa daraaddeed I help you, aan ku caawiye if I can, haddii aan awoodo. Aisha soo booda marka waxay tiri this morning, saakadan bay tiri ama saaka ama subaxan sidaa u taqaanid, I took, waxaan qaaday bay tiri my husband's phone, ninkayga telefoonkiisa, to watch, si aan u daawdo videos, yacni videoyaal ama muuqaalo, for an entertainment, si maartay aan isugu madadaaliyo. Entertainment waa madadaalo. But laakiin suddenly, isla markiiba ama si lama filaan ah, I received, waxa isoo gaaray tiri ama aan helay a message, fariin, which was wrote, fariintaasoo loo qoray as follows, sida soo socoto. fariinta marka waxaa ku qornaa honey, yacni macaanto, today, maanta, which lodge, yacni lodgekee, shall we meet, aan ku kulmaynaa. lodge waxaan filayaa in la yaqaano, yacni waa qolal oo maanta kira ah oo ay dadkii maanta kusoo degaan amaba ay kireystaan si ay waqti u joogaan. inta badanna meelaha hoteelada ayaa laga helaa. okay, wuxuu marka qoraalku wuxuu ahaa, waxaa ku qornaa honey, macaanto, today, maanta, which lodge, yacni lodgekee, shall we meet, ayaan ku kulmaynaa. since then, ilaa iyo markii ama laga soo bilaabo markaasi ama wixii intaa ka dambeeyey. since then, wixii intaa ka dambeeyey, I lost, waxaan waayey mise iga lumay bay tiri conscious, yacni damiirkii ama garashadii. I lost conscious, waxaa isla markaasi iga dhumay amaba iga tegay tiri garashadii. xasna waxay tiri marka I'm very sorry, aad baan ugu xumahay. Be patient, dulqaaday tiri. Be patient, dulqaado. Nowadays, maalmahan, men, ragga, are filthy, waxay noqdeen bay tiri kuwo wasaq ah. men, ragga, are filthy, yacni kuwo qarmuun oo wasaq bay noqdeen. They run after, waxay ka daba ordaan bay tiri every damsel, dhoocil walbo. They run after, waxay ka daba ordaan every damsel, dhoocil walbo. And as you are, maadaama aad tahay bay tiri, and as you are, maadaama aad tahay the right wife, islaanta maartaay saxda ah ama maartaay xaaska saxda ah. never get jealous, weliga ha ka masayrin. jealous waa masayr, weliga ha ka masayrin of dirty side chicks, yacni naagaha kaleeta oo qarmuunka ah. yacni side chick waxaa lahaa naagta qofka ninka uusan qabin balse saaxiiba uu leeyahay oo ula dhaqmo ayaa marka waxaa lahaa side chicks. marka waxay tiri never get jealous, weliga ha ka masayrin of dirty side chicks, naagaha yacni wasaqda ah ama qarmuun ee marka side chicks kan laho oo yacni qofka uusan qabin balse laga yaabo inuu saaxiib leeyahay oo ula dhaqmo. So for today's lesson, we will stop there. Please subscribe the channel, share with your friends,
and where you don't understand, ask me as a comment, and please like also the video. Thanks, and we meet next time. Bye bye, and good afternoon.